gudoomiyaha ururka SSWC marwa Aamina Xaaji Cilmi gudoomiye Caasha Shaacuur wasiirad Axmed Caalim gudoomiye Duniya Maxamed Cali Samee sidoo kale walaalkeen diini oo ururka tubta nabadda Soomaa ururada bulshada saaxiibkay Abshir Cali Khayre oo madax ka ah qaybta communication Hormuud Telecom mas'uuliyiinta kale Hormuud ka socota iyo Hormuud Salaam Foundation dhammaan intaan ka soo qayb gashay bahda saxaafadda waxaan idinku salaamayaa salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan dhammaan aan idin leeyahay Ramadaan mubaarak ramadaanka iyo ducada iyo salaada iyo qiyaamka Allah naga aqbalo bishii sadaqada bishii quraanka bishii xawaaye khayrka iyo wanaaga kuwii ka faa'iideysan Allah naga dhigo intaas kadib maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno barnaamijkan ay soo qaban qaabisay SSWC waa barnaamij sanadle ah oo kaalmo lagu gaarsiiyo in badan oo kamid ah haweenka Soomaaliyeed gabdhaha hooyooyinka haddii ahaan lahaayeen kuwa magaalada jooga kuwa xabsiga ku jira iyo kuwa ku jira isbitaalka dhimarka Dr. Xabeeb طبعا SSWC iyo ururada mataqaana ay bahwadaagta yihiin ee ka shaqeeya hawlaha dumarka iyo bulshada reedka waxay u hayaan ummadda Soomaaliyeed hawlo muhiim ah sababtaas waaye sababta annagana aan markaas aan u taageerayno oo garab taaganahay shalay waxaan joognay munaasabad ka dhacday gobolka Banaadir oo ay soo qaban qaabisay gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir oo ayadana qayb ka mid ah haweenka danyarta ah lagu gaarsiinayay kaalmo saakay waxaan ka imaanay kulan kale oo ay qabatay urur haween SWDC la yiraahdo oo ayadana sidoo kale haween mataqaana lagu gaarsiiyay gargaar waxaa sidoo kale jiri doona maalmaha soo socdo qaybo kale oo isla haweenka ah haweenka Soomaaliyeed waxay yihiin ama haweenka sidoodaba qaybaha ugu muhiimsan bulshada gaar ahaan anaga daana Soomaalida kaalin fiican ay noogu jiraan sidaas ayaana muhiimadda u siinaa haddii aan nahay Hormuud Salaam Foundation ama Hormuud Group intaba dabcan waxa waaye dadka Soomaaliyeed inay ayaga istaageeraan isgacan qabtaan waxaan aaminsanahay inay tahay waajib islaami ah iyo mid ummadeed intaba oo la isku leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan in bishaan barakeysan ee Ramadaan la caawiyo la garab istaago inta u baahan in la kaalmeeyo duruufo adag ayaa dalkeena ka jira muddana soo jiray welina jira Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu culaysyada jira uu naga dulqaado si walba ay yihiin dadka Soomaaliyeed marka inay ayaga isku filnaadaan ayaga isu gurmadaan ayaga istaageeraan ayaan aad iyo aad u muhiim ah annagana aan boorinaynaa intii aan jiraan insha Allah ta'ala garab istaaga iyo gargaarka iyo kaalmada waan sii wadi doonaa gaar ahaan hooyooyinka ama dumarku waa dadka u ah tiirka ama udub dhaxaadka nolosha qoyska